Bismillahirrahmanirrahiim kulanti oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqbaahiyaha caalamiga ah ee wareegga wararka xilligan oo kale warka Soomaalida iyo kuwa caalamka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Trump oo weeraray Ilhaan Cumar una gaftay mar kale Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay mudug weerar ismaydaamin ah oo saakay lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee Bacadweyn saraakiil iyo xubno shabaab ah oo lagu dilay Shabeellaha Hoose dagaal u dhaxeeya Turkiga iyo Imaaraadka Carabta oo ka bilowday dalka Ciraaq sidoo kale akhbaaraadka caalamka waxaan idin haynaa saaxiibayaal weerar lagu geystay mindi oo ka dhacay UK Masar oo ku goodisay in taageero military ay siinayso Khaliif Xaftar Hindiya oo sheegtay in Shiinaha ay ka dileen ugu yaraan 40 askari Sacuudi Carabiya oo gabi ahaanba qaadaysa bandowgii ka dhashay cudurka faafa ee coronavirus Trump oo qabsaday ololihiisii doorashada ee ugu dadka yaraa inta uu xilka hayay akhbaaraadkaas iyo wixii nagu soo kordhayaad ku maqli ama aad ku daawan doontaa saaxiibayaal markaan wararka Soomaalida ayaan aadin doonaa faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerar ismiidaamin ahaa ee kooxda Al-Shabaab saaka aroortii hore ee ku qaatay saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyihiin gobolka Mudug wararka oo ah mid qorsheysan ayaa waxaa lagula beegsaday saldhigga ciidamada qaybta 22aad ay ku leeyihiin deegaan Bacadweyn ee gobolkaasi saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ka hadla weerarkaasi ayaa sheegay in ay ka hortageen isla markaana ay qarxiyeen gaari nooca Soomaalida u taqaano Leyla Calaawi oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa sidoo kale waxay tilmaameen inay halkaasi ku dhinteen raggii saarnaa gaariga ee weerarka qaaday saraakiisha ka hadasha weerarkaasi ayaa dhankooda xaqiijiyay in weerarka lagu dilay ilaa 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda wali ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab balse xaaladda hadan ayaa ah mid aad u degan wali waxa daawanaysaan muuqbaahiyaha caalamiga wareegga wararka markaan akhbaaraadka caalamka hadaan idin soo baahino waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka Hindiya ayaa sheegay dagaalkii toddobaadkan xadka ku dhaxmaray labada dal in ay Shiinaha uga dileen ugu yaraan 40 askari labada dal ee ku hubeysan hubka nuclearka xaddii wuxuu dagaal ku dhaxmaray xad ay labada dal wadaagaan Shiinaha ayaa dhankeeda wali ka hadleen khasaaraha dagaalkaas ka soo gaaray dagaalkaas oo ciidamada labada dal ay gacan isula tageen dagaalka ayaa Beijing iyo Delhi ku dhaxmaray dhulka buuraleyda ee Galwa oo ay labada dal si weyn isku hayaan dal kasta uu lahaanshaha dhulkaasi sheegto dhanka Hindiya haddii ay 20 askari ay ka shahiideen Shiinaha ugu yaraan dagaalka waxaa ka soo gaaray khasaare laba jibaar ah ayuu yiri wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka Hindiya Singha oo u waramay TV News 24 Singha oo horay u ahaa sarkaal military Hindiya ka tirsan ayaa hadalkiisa waxa cadeen u keenin wuxuu sheegay taariikh ahaan dalka Shiinaha inuu waligii qiranin khasaare dagaal ee ka soo gaaray tan iyo dagaalkii Hindiya iyo Shiinaha dhaxmaray 1962 warbaahinta afka dowladda Shiinaha ku hadasha ee Global Times waxay mar sii horeysay sheegtay in Shiinaha dagaalkaasi khasaare ka soo gaaray balse khasaarahaas wuxuu yahay faahfaahin kama aysan bixin Singha wuxuu sheegay Hindiya ciidamada Shiinaha ee dhulka Hindiya ku go'doonsanaa in ay ku wareejiyeen Shiinaha iyadoo xiisadu wali taagan tahay wasiirka gaashaandhigga Hindiya Bharat Bhusha ayaa ka gaabsaday inuu wax ka yiraahdo hadalka Singha ee ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi wuxuu sheegay waqti xaadirkan inay jiraan ciidamo shisheeye ee ku sugan xadka Hindiya iyo dhulka laga qabsaday toona dalka Shiinaha khasaaraha ee ka soo gaaray dagaalka ciidamada Hindiya ay la galeen wax war ah kama soo bixin tan iyo markii labada dal uu iskaga horimaadka ku dhaxmaray xadka labada dal ee u dhaxeeya Hindiya iyo Shiinaha halka aad ka daawanaysaan waa muuqbaahiyaha caalamiga ee wareegga wararka muuqaalkan haddii uu ku soo gaaray channelka subscribe saar noona share garee comment iyo like na ka bixi mahadsanidin saaxiibayaal